xogayaha xanaanada xoolaha xisbiga wadani Dr. Axmed Cabdilaahi Cige ayaa ka hadlay markab siday xoolo oo laga raray dekada Berbera isla markaasina xoolahaasi la geynayay dalka Sacuudiga oo lagu soo celiyay dekada Berbera. Xogayaha xanaanada xoolaha oo arimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi anigu uma arko wax dhiba cid kasta oo lagu canaantaana waxa weeyaan haddii jirtana waa canaantu jirtana uu yeelan haddii aanay jirin deemaba laha oo waa la arkaya dadka arkaya taasi waa taasoo waa intaasoo waa hadalkii shalay inkasta oo wasiirku isna kulli waa bani aadam oo khaladaad uu jirayay ay ahayd inuu dadka qanciyo oo sababtii lagu soo celiyay markabka neef buu magac dhabay baan u malaynayaa neef baa wax laga helay wax laga helayna de kulli anu u malayn maayo neef kaliya in wax lagu soo celiyo waayo beersan bay qabsadaan oo Brussels oo kale mesela haday 2% ama dhaafto waxa soo kale boqolkiiba inta laakiin neef kaliya markab dhan oo 20 kun oo neef sida anigu way ila adagtay sida loo soo celiyaa dhakhtarkiina la socdo waliba dhakhtarka la socdo laftiisu xooliyo iska yimid oo dhakhtarkaasi iskaga tasarufayo dadkii watanayna waxba ka garaneyn iyo xoolo dhakhtarkii laha la socdo oo la garanayo dhakhtarkan kale wixii meesha jirayna way yar kala duwan tahay iyana taasina waa wax wanaagsan waan ku boorinayaa waxa kale oo jirta in aragtida la ballaariyo oo xoolaheena loo dadaalo ayaa iyana aan ku yar darayaa waxaan ku darayaa mesela waxaan arkayay maalin dhoweyd kawaan weyn oo xoolaha lagu qalayo ilaa 1500 oo neef baa lagu qalayaa wuxuu ka dhisan yahay meel 20 kiilo u jirta madaarka airportka Addis Ababa ee Boli airport la yiraahdo sababta loogu dhaweeyay waxa weeyaan in xoolaha la saaro diyaaradda marka la qalo oo si degdeg ah meeshii loogu wadin loo geeyo waxana arinku uu ku socday marka ay xayeysiinayeen Ethiopia oo ah wadanka ugu xoolo badan geeska Afrika ficilna way isbedelada aynu arkaynaa la yaab kale oo wadanka ugu xoolo badan wuxuu ahaa geeska Afrika Soomaaliya uu ahaan jiray inta isku jirtay imikana markay go'go'day Soomaaliya way xoolo badan tahay laakiin kulliba marka la yiraahdo Berbera Port oo kale xoolaha Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhameeyay ka dhoofi jireen taa waan arkayo diyaarad baaba lagu qaaday oo weegiba 1500 oo neef baa lagu qalayaa waxa kale oo jirta Djibouti oo iyana u samaysatay terminal cusub oo dekedeeda kamida oo ay xoolaha ka dhoofinayso hujuumadaas oo dhamina waxay ku soo socdaan waa Soomaaliland iyo dekeda Berbera marka wasaaradda lafteeda iyo dawladduba waxaan ku boorinayaa inay waxyaalahaas oo kale iyadana ildheer u yeeshaan oo ay ka warhayaan oo dadaalka xoolaha loo dadaalayo ay kamid ahaato waan soo gaabinayaa maanta waan ku boorinayaa wasaaradda inay jawaab bixisayba way barigoor jawaab waa laga laa kol haday iyadu u horeyso jawaab bixisay waa arin aad u wanaagsan weeyaan wixii damban waynu ka wada socon doonaa marka inay sidaa indhaha u kala qaado oo ay Berbera Port waa istiraatiiji aan Djibouti iyo Ethiopia xoolo badan midna la oranine halka xoolaha badan ay dekedan Berbera istiraatiijiga noqoto oo ay ku dadaasho sidii halkan looga dhoofin lahaa imika kawaan baa jira Berbera ka dhisan mid burca ka dhisan baa jira xoolaha oo qalanna waa la dhoofiyaa xoolaha oo waliba marka la qalo ayay xooluhu sii faa'iido badan yihiin oo haragoodii iyo hilib wixii kale oo dhan baa ka haraya iyagana goona loo dhoofinayaa kuwan la yiraahdo ishaag neefko isku dhamina waa ka halkan ka dhoofo isaguna waa ka marka waan soo gaabinayaa way fiican tahay inay wasaaraddu saas oo kale dadka wala socodsiiso ay jawaabaha bixiso in ka badan waa looga baahan yahay Axmed Ismaaciil Cabdi telefishinka caalamiga ee RTN Hargeysa.